السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر أما برو موضوع عشر كان مانتا وحو كسابسن يهي سيدا ويندوز اكس بي لوغو حيرو باسور وحانا إذن سجيدنا عشر كان أنيقو دي جي آر مهينا داوشو عن إلا سو عشر كان هدا يان بلاوانينا dad ayaa isu weydiiyey sida password loogu xiro Windows XP. marka dadka qaar waxay isticmaalaan Windows 7, Windows 8, Windows Vista, dadna Windows XP. marka way kala duwan yihiin istabyada loo kala maro sida password loo bedelo. laakiin muhiimadana maanta waxay ku saabsan tahay sida Windows XP loogu xiro password. casharada soo socdana waan ku soo qaadan doonaa Windows kale sida password loogu xiro sida Windows 7 iyo Windows Vista iyo wixii lamid ah. okay cashirkana maanta halkan ayuu ku bilaabanayaa. waxaa imaanaysaa start menu, click ayaa siinaysaa. waxaa raadinaysaa control panel, click ayaa siinaysaa. waa yara sugaysaa. kadib waxaa imaanaysaa halkan ay ku qoran tahay user accounts, click ayaa siinay. kadib halkan ayaa ku soo baxayso. haddana waxaa sii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay user accounts, click ayaa siinaysaa mar labaad. kadib waxaa ku soo baxaysa halkan waxaa ku qoran laba user ayaa taalo. kan waa guest mid martida, midkan waa userka aniga hadda isticmaalayo bar ama bar computer administrator keyga weeye. marka waxaa rabaa inaan kan aan ku xiro password oo aniga khaas ah. click ayaa siinayaa. halkan midkaas uu kora change my name waa magaca bedelinaysaa. magaca hadda halkan ku qoran bar ama bar waa tirtiri kartaa dhawaada computerkaaga waxaa rabtaa ku qoran kartaa. create password aad muhiimadana waa password. marka password aad ku xiranaysid waxaa muhiim ah inaad kan ku dhufatid create a password. click ayaa siinaysaa. halkan waxaa ku qoran tab new password. passwordkaaga ku qoranaysaa cusub. halkan godka labaad ay imaanaysaa tab the new password again to confirm. mar labaad passwordkaaga ku qor oo hubi. tab a word for to use password. halkan waxaa ku qoran kartaa calaamad ku gaar ah waxaa rabtaa ku qoran kartaa. haddaa rabtidna waa ka tegi kartaa, muhiim ah. wax la isaga qoraysaa lashaan waa iska caadi, phrase to use waayo. okay waxaa isaga qornaya hadda wax baro camal. kadib waxaa imaanaysaa create password. click siinaya apply the new password to your account. mar haddaa midkaas ku dhufatay wuxuu ku dhahayaa then do you want to make your files and folders private. folderskaaga iyo fileskaga private inay ahaadaan marabtaa. haddaa u baahan tahay yes waa dhihi kartaa, haddaa ka rabtid no waa dhihi kartaa. marka maadaama wax password ku xiratay waxaa ku roon inaad dhahdid no, macnaa documentigaaga qof kale inuu arkin. waa hagaag. hadda computerkaaga password ayaa ku xiran. marka inuu password ku xiray in kale waxaad ku ogaan kartaa computerkaaga. waxaa ku sameynaysaa restart ama log off. kadib markuu soo kacayo wuxuu ku soo kacayaa isagoo ku dhahaya geli password. marka waan idin tusin doonaa isagoo restart ku soo kacaya passwordka aan gelin doono. haddana waxaa u baahan tahay in aad iska tirtid passwordka oo aad iska dhaaftid bilkuliyum. computerkaaga password adoo ku xiray sida iska tirtiri kartaa password way fududahay, easy waaye. istabeed hadda soo maraysaa aan xirno sida passwordka loo tirtiro ku tusinayaa. mar labaad start menu waa imaanaysaa. waxaa imaanaysaa haddana control panel, click ayaa siinaysaa. waxaa yara sugaysaa. waxaa imaanaysaa user account, click ayaa siinaysaa. kadib waxaa ku soo baxaysa halkan user account aad dooranaysaa. haddana waxaa kaloo ku soo baxaya waa kan labada user ku taal, midka martida iyo midkaaga caadiga ah. marka waxaa u baahan tahay passwordka inaad tirtid. meeshan oo qorata majeedaa password protected, password isku xiran ku shiga. midkan kalena caadi waa password kuma xirna.
marka kan passwordka aan ka qaado oo aan ka tirtiro kaliya ayaa siinayaa ebil waxay ahayd halkan account password create password ay ahayd sorry create password hadda laakiin waa change password my password allora remove my password halkan ay baa sida loo tirtiro passwordka kaas ayaa kaliya siinaysaa waxaa ku sabaxas kadib halkan waxaa ku qoran digniin ah are you sure you want to remove your password ma hubtaa inaad passwordkaaga aad tirto uu ku dhayaa marka intan waxaa ku qoraysaa type your current password passwordkaaga hadda computerka ku xiran adigoo passwordka ku qorin uu ku tir karo kadib waxaa dhaysaa remove password kaliya ayaa siinaysaa remove password kan hadda password kuma xirna computerkaaga halkan waxaa ku qoran create password mid cusub sameys hadda computerka password kuma xirna okay intan imo account waa ku tusina haddana meeshado password protected ahead kuma qorna kan fiir halkan caadi waa password kuma xirna marka sidaas way shirkan intaas ayuu ku saabsan yahay waa mahadsantihiin daawashada comment rate and subscribe